marka ugu horeysa waxaan ka mahad celinayaa ajiibitaanka aadna ajiibteen eed naga aqbasheen waqtiga kooban ee aan inaga codsanay inaad xafladan nagala soo qayb gashaan. mid baan naga raali gelinayaa, waxaad ku arkaysaan halkan caasimadda haddii la soo hadal qaado ama meel lagu qorana gobolka Banaadir inuu ka muuqdo ayaha waa ku ballansanayn, laakiin xaflad kale oo aanay iyaguna ka maarmayn oo waqti hore ay galeen ayay maanta tageen. waana noo suuroobi weeday inay qof noo soo diraan, laakiin waan is ognahay qorshaha xasilinta caasimadana qaybta ugu weyn ayay ka yihiin muxuu ahaa gobolka, waayo iyaga ayaa ah maamulka martida loo yahay ama hooyadii dowladnimada Soomaaliya iyaga ah, oo hawl kasta oo ka dhacaysa magaalada iyaga fure u ah. ujeedka ugu weyn ee aan shirkan u qaban qaabinay oo aan kow noqonayn oo akii ugu horeeyay, laakiin aan rajaynayno inay ka dambeyn doonaan shirar badani. marar badan madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu goob fagaaro ah ka sheegay muddadii dowladnimadu soo jirtay u dambeysay isku dayadii la doonayay in dowladnimada lagu soo celiyo inay shaqayn waayeen. sidaas darteed in lala yimaado ama ayna faray inay la yimaadaan wasiirada xukuumaddiisu qorshe aan ahayn qorshihii hore oo laga leexdo qorshihii lagu soo fashilmay ee shaqayn waayeen. sidaas darteed amnigu maaha qoriga keliya. haddii la yidhaahdo waxbaa la xasilinayaana maaha qori keliya in lagu xasilinayo. ummadda Soomaaliyeed fursad weyn baynu maanta haysanaa oo ah inagoo wada jirna inaynu seeska u dhigno oo aynu dhidibada u taagno dowladnimada Soomaaliyeed ee mustaqbalka dambe jiri doonta noocay noqonayso, oo aanay noqon wasiir iyo xildhibaan iyo inta mansabka ka haysata dowladnimada keliya inay ku koobnaato, in qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay inuu fikirkiisa ku biiriyo aragtida waddankiisa dib loogu dhisayo. sidaas darteed ayaanu caawa waxaan garanay inaanu kulankii ugu horeeyay ku marti qaadno aqoon-yahanka bulshada rayidka ah, xildhibaanada, si aan u dhageysano fikirkiina oo ah bilow. waxa aan diyaar u nahay in aanu madalahan iyo madal kale oo ka weyn oo ka ballaadhan aanu qabanno oo dood cilmiyeed laga qabto sidee ayay maanta magaalo madaxda Muqdisho ama dowladnimada Soomaaliyeed ee mustaqbalka aan doonaynaa nooca ay noqonayso, mujtamaca Soomaaliyeed dhaqankiisa iyo diintiisa iyo hadafkiisu muxuu noqonayaa, inaynu ka talino aqoon la geliyo, waqti la geliyo. sidaas darteed waxaan iniga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad nagala soo qayb gasheen madashan caawa. waxaan u mahad celinayaa taliyayaasha oo iyaguna runtii idiin bayaamiyey ama si waadixa uga hadlay qorshaha ay doonayaan in ay magaalada ku soo celiyaan xasiloonida magaalada iyo waxyaabaha u qarsoomay ilaa hadda. 12 saacadood ee u dambeeyay waa markii ugu horeysay magaalada Muqdisho aanay shabaab iyo cid kale xabad qof lagu dilin. hawshaana waxaa keenay ilaahay baan ugu shukriyeynaa iyo dadaalka ay muujiyeen taliyayaasha iyo saraakiisha u xilsaaran amniga, oo ay tahay inaan uga mahad celino, ku bogaadino si ay hore ugu sii socdaan, inaguna u garab istaagno si aynu amni uga dhigno magaalo madaxda oo ah dadka Soomaaliyeed. magaalo madaxda Muqdisho dad badan oo hortayda fadhiyay iyo hareerahayguba 91 ilaa hadda waan isla soo taagnay. waxaan nahay oran karnaa waxaan nahay markhaatiga nool ee Muqdisho wixii ay soo martay. marka Cabdiraxmaan professorkan hadda kaftamayno wuxuu yiri waxaan nahay maxbuus guri ku jira, wuxuu la yaabay hoteelkan quruxda badan ee dabadii la dhisay ee aanu weli arag. marka waxaan la qabsanay waqtiyo badan in aanay habeenku noo tirsanayn 5 galabnimo meeshii la gaaro xamar la xiroon jiray, haddii ay Kaaraan joogto iyo haddii aad Baarubax joogto iyo meeshii marka aad booqateed maalinta asxaabta ugu tagto inaad tiraahdo 5 galabnimo haddii gaadhay waa waqtiga 5 galabnimo waa habeenkii halkeegana seexana. alxamdulillah rabbil caalamiin waqtigeena gaarsiiyay ilaahayna gaarsiiya mahadle. waxaan rajaynaynaa inuu ilaahayna gaarsiiyo sidii ay Muqdisho ahaan jirtay oo ah caasimadda ugu nadaafadda badan uguna amniga badan dalalka Afrika. marka shirarkan iyo kuwa kaloo la midaba waan qabsan doonaa intaanan qadiijo oo shirka noo soo xiri doonto ku wareejin. waxaan jecelahay guddida amniga oo uu gudoomiye ku-xigeenku inagala joogo
hawl fara badan iyo sharciyo fara badan ayay nala qabteen muddadii baarlamaanku furnaa markaa shahaado sharaf aan guddoonsiinaynaa muxuu ahaa guddida amniga baarlamaanka iyo aqalka sare labadaba markaa